مدى سبحانه وتعالى لها هذه الله سبحانه وتعالى شو كنا سي هذه الله سبحانه وتعالى شهادة كل إله سبحانه وتعالى شجع عليها إنه استعمال الله استعمال إله سبحانه وتعالى محسيدي الله استعمال الله كلمة سنة هذه كلا وحين غدا إن معادي مالتي إله سبحانه وتعالى ونقول الله بصدق أين ما صوبت الإيمان تنكلم حد دار منه إلا دداله علم إلا دداله إن وحلا برته هاي لي مسنا خف وحبرته يخف وحبرا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلى محور مسلمين أنت وحبرتي أنت وحوجين أنت مرك مسنا لكن جواب من حيل وجواب اسكعد أو لو أوجي هاي وحلا برته هل دداله maxaan ku dhihi fursada meeshan taal waxbarashada lacag la'aanta ha ka faa'iideystaan dhalinyarada ha ka faa'iideystaan qodayaasha ha ka faa'iideystaan waxaa sharaf ku yeelan karnaa cilmiga xaqiiqatan oo ogtihiin ummadda Soomaaliyeed halkan timaaday waxa lagu caayay maxay tahay waa jahilna waxa la ninka xataa ninka ahaa diiday anada jahila tadillu halami marka jahliga aan ka baxno aan wax barano Soomaaliya waxa la barto dhalinyarada wax barta waxyaabaha aan maaragtay waxba aan ka faa'iideynin ha ku mashquulina inaad wax barataan magaciina kor u qaataan horumar adduunyo mid aakhir aad gaartaan taas ku dadaala jiirad iyo waxyaabo kale ku mashquulina lagu mashquulin waxa la barto waalidkiin anfaca dadaala intaas aan maaragtay in amri lahaa magaca Soomaaliyeed dhulka yaala maaragtay inaad dhulka ka soo qaadaan maxaa yeelay jahli yaa nagu lacaya jahligaas waa inaan ka baxnaa صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أبو أمتي هاي الشيخ عبد الرحمن وعدي واندي ونص جديد جزاكم الله خير. وحن سي داده دونا برنامج كني أي نسوي معني أنا وعصانينه مر والباقينا دجنانته أيان إلالينه وحن هكذا ويجي دونا قدوميها ضلدا وحبرشة طيو أهنا qabanqaabiyaha ama isku dubaridaha xafladani aynu maanta u joogno oo sanadlaah oo sanadkiiba mar dhacdo ayaga ayaa faahfaahin buuxda naga sii doona kama horlacayo waa Saciid Axmed Siyaad falyatafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa waxa jirta cilad xagga farsamada jirta oo dhinaca computerka haddii qof computerka qatar ku ah uu jiro loo yimaado nacaaw haddii uu jiro way qof computerka si fiican u yaqaan dhinaca projectorka marka ugu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka xigta eu vill säga några ord på svenska första innan jag berättar på somaliska för att det finns några som inte förstår på somaliska och vi måste säga eller välkomna. Här idag kommer våra ungdomar som har lyckats att ta körkort 2015 och våra också studenter som har klarat gymnasiet eller högskolan 5 stycken som har klarat och nästan 10 stycken som har klarat som vi ser här gymnasiet och för nästa sidan sitter några som är klarade årskurs 9 och kommer att få idag pris eller present. Min höger sidan sitter körkortstagare i år som vi kan gissa nästan 43 stycken och där sitter också 15 stycken som har tagit yrkesmässig trafik när det gäller buss och taxi. Så idag under festen vi kommer att prata om detta programmet. Programmet kommer inte få så långt och jag vill säga alla är välkomna. Jag beklagar er att vi har lite problem med dator, att programmet som vi skulle visa så good. Tack så jättemycket Bashir. Bashir har صعبين على sababta ciladii aan la wararsanay isaga oo sax Soomaa marka waxaan jeclaan lahaa in soo dhawaado dad badan det finns många som säger vad är tayo eller vad är egentligen tayo är inte somaliska förening tayo är studio stödorganisation
som jobbar att hjälpa folk. Och det är gemensamma studiecirklar. Gemensamma studiecirklar grundades 2010 och syftet att skapa med detta är att folk utbilda och det är somalier som behöver att komma in i svenska samhället. Så jag har skrivit lite grann PowerPoint, ett program som ni kan lite grann se här. Som ni ser här, det står det Tayo. Ordet Tayo betyder kvalitet och det är gemensamma studiecirklar. Vi som arbetar i OBF och vi tackar OBF verkligen för att de hjälper till oss när det gäller lokaler och materialer. Och till exempel idag där vi sitter och vi håller den här festen av studien, det är OBF som hjälper till oss. Och vi ser där Osman sitter och Bent Uwe som är chef OBF. Så vi säger tack. Om ni ser, kolla där under, ni ser att gemensamma studiecirklar är 10 cirklar. Den första är svenska undervisning och körkortsteori, engelska och datakunskap, läxhjälp, unga för läx och samhällskunskap. Studiecirkeln för svenska undervisningen och körkortsteori bildades den 5 februari 2010 och det var 10 deltagare som började studera tillsammans både svenska och körkortsteori. Efter en kort period uppskattades cirkeln och blev allt mer populär i Borlänge. Mer än 400 personer har deltagit under tiden tills kursen har gått och cirka 55% av deltagarna har nått målen. Cirkeldeltagarna är både män och kvinnor och intresserar väldigt mycket. Verkligen, när det gäller Tayo, vi pratar ingen politik, vi pratar ingen religion, bara vi pratar mest kultur, kunskap och kvalitet. Syftet att etablera Tayo studiecirkel, jag har tagit bara 4 punkter. Att lära sig svenska språket för att öka möjligheten att de nyanlända kan klara sig i SFI-kurser och komma in i svenska samhället. Därför att många tycker att det var viktigt. Andra punkter som jag kan ta är till exempel att underlätta hur många skulle ta körkort för att det är ofta ett krav när man söker jobb och man känner sig så friare i livet. Tredje punkten är att vara ungdomar för hjälp sina studier för att engagera sig och i skolarbete och gå vidare i livet. Fjärde punkten är att lära sig samhällsorientering, att man integreras i samhället på rätt sätt. Dessutom att det är viktigt att man är medveten vilka regler som gäller här i Sverige. Så det är syftet Tayo, det betyder kvalitet som jag redan sagt. Och vi ser, om det är inte Tayo, det skulle inte komma så många som sitter här, som ni ser, och det är fina lokaler. Cirkeln ser ut så här. Det finns första och främst, det var B-körkort i grunden. Och en grupp som talar svenska, inte bara somalier, svenskarna som lär också, eller de deltagar också. En grupp 8 stycken taxiförare legitimation, de flesta har lyckats. En grupp 6 stycken bussförare, de flesta har lyckats. 2 grupper 15 stycken engelska och datakunskap och det är Negeje som är lärare. Och taxi och när det gäller taxi och svenska, det är Abdifetah Bersi som är ledare. Okej, jag har skrivit lite grann under den är stabeldiagram. Jag ser inte om ni ser. Ser ni? Ja. I'm sorry. Ser ni? Den är stabeldiagram. Jag har ordnat. Jag är också matematiklärare. Introduktionsprogrammen, höggymnasiet eller hos höggymnasiet båda. Och som ni ser, den är stabeldiagram. Den första år det var 2010 innan Tayo startade eller grundades. Och det var 8 stycken, ungefär 8 stycken som hade körkort. Och
som du ser här, 2011, 2013, 2014, 2015. När tror ni att den är högst? Jag tror att det är 11 kan. När, vilket år att Somalia har tagit mest körkort? Om du kollar diagrammet. 2014. Det var 60 stycken som har tagit. Men idag, våra deltagare som sitter på högersidan, det är 43 stycken. De kommer snart. Så det var, och jag tackar också alla cirkelledare. Den här gammal bild som jag har tagit exempel är, de har tagit 2011 under sommaren, och det var för en studierum. Och som ni ser här, det är Mahmoud Abukate som stod där, och det är en förälder som talar med detta. Och kanske några fett kanske ser deras bild. Det var 2011. Osman, jag ser. Först och främst, vi hjälper mest kvinnor för att ta körkort. Och jag vill visa lite grann en bild som vi har tagit. Men vi delar inte andra, men vi har sparat ett dokumentär. De bilder som ni ser, det får en deltagare, mest kvinnor, som för att ha möjligheten att köra bil. Och de är trevliga, verkligen. Den är den lokalen som vi använder mest. Eller cirkelledare. Okej. Jag vill säga några ord på somaliska, för att det finns nästan 400 somalier sitter här i aulan Höga gymnasiet idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. marka koowaad waan salaamayaa marti sharafta ardayda waxbarashada iskuulada heerka fiican ka gaartay, qaybaha ardayda heerka jaamacad ka gaartay, ardayda fasalka sagaalaadka sidoo kale waan salaamayaa. sidoo kale waxaan salaamayaa marti sharafta siyaasiyiinta, jaaliyadaha, foreennada, inta madaxda inta waan salaamayaa. qaybaha marti sharafta isuulishka ay ka soo qayb gashay iyaga laftigooda waan salaamayaa. runtii waxaan leeyahay dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijkan xafladda xiritaanka loogu talagalay dalada waxbarashada tayo ay maanta lagu maamuusayo, iyadoo aad barnaamijkan insha Allah taala aad ugu maqsuudi doontaan si qurux badan. dalada waxbarashada tayo waxaa loo aasaasay in ay dadka waxbarto, in ay dadku ay ku kulmaan, fursad u helaan ay wax ku bartaan, in ay dadku ay fursad u helaan meel ay ku sheekaystaan oo ay ku fahmaan suuqyada shaqada, waxyaabaha muhiimka meel ay ugu hadli karaan. run ahaantii dalada waxbarashada tayo waxaa la aasaasay 2010 ilaa intii muddadii ay socotay waxaa qaatay dad aad u badan ayaa shuquuqti qaatay oo maanta suuqa shaqada ku jira. run ahaantii waad ka dareemi kartaan, wax qarsoomi karana maaha. waad aragteen gabdhaha basaska wada, waad aragteen wiilasha tagaasida wada, waxaasoo dhan waxa way ilaahay ka sokow. waxaa mahad ku leh dalada waxbarashada tayo iyo macallimiintooda har iyo habeen u taagan ee iska xoqabso u shaqeynaya. barnaamijkan sidoo kale dadkii aasaasay halkan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 10 qofood ugu horeysay oo ay kamid ahaayeen Xaaji iyo ay sheegay la yiraahdo Cabdirasaaq iyo Naaleeyo. dadka mashruucyada ma sheegi karo, waan u mahad celinayaa. adiyana sidoo kale waan u mahad celinayaa dadkaas insha Allah taala. waxaan sidoo kale aan iloobi karin oo aan iloobi karin sirkaleedayaasha markasta u taagan barnaamijkan quruxda badan. waxaa loogu talagalay inaan farxadda isla qaybsano, ardaydeena aan u garaatuleynano oo aan u hambalyeeno. taasaa loogu talagalay. sanad kastana waa u dhacaa. waxaan dadweynaha ka codsanayaa, waxaan akhyaarta ka codsanayaa, waxaan waxgaradka ka codsanayaa, waxaan indheergarad ka codsanayaa, haweenka waxaan ka codsanayaa intaba in ay ay gacan ka geystaan barnaamijkan sidii uu ku fuli lahay oo uu ku socon lahay inuu gacan ka geystaan. sababtoo ah waxa haddii ay wanaagsan yihiin waxaa laga rabaa inaad taageerto. haddii aan ku yiri wiilkaaga ama gabadhaada farxadeeda 500 oo Soomaaliya kula qaybsato, dhibaato miyo siciid ku geystay? waa maya waay. sayla tahay anaan isu jawaabayo, bas adiga ka jawaabaysid waa maya waa xaqiiqada dhabta. waxa laga yaabaa dadka qaarkood maanta qol kaligood inay ku farxayaan, kaligood fadhiyaan. 500 inay kula farxdo iyo inaad kaliga qolku soo xirto tee ku fiican?
fursaddan maanta qof heli kara qof nasiib lahayn xaqiiqda dhabtaa sidaan aaminsanahay waayo wax maaragtay ii sheeg aan dan ah oo aan ka wada nahba yaraateena ma jirto ilaahay dartiisa ayaanu qabanaynaa waxaan maaragtay u mahad celinaynaa dadka xoogooda muruqooda iyo maalkooda intaba ku bixiyey barnaamijkeenna waxa waaye waa dadeji doonaa waan fududay doonaa waana maaragtay u garaatuleeri doonaa ardayda intaba haddii ilaa yidhaahdo waxa aan rabaa hal mar inay soo istaagaan sirka leedarayaasha oo dhan OBF hal mar inay soo istaagaan ayaan rabaa halkan inay soo istaagaan waxaan ka codsanayaa sirka leedarayaasha muddo 2 daqiiqo gudahooda inay halkan ku soo istaagaan qofkii sirka leedar ah OBF inuu halkan soo istaagaan rabaa sirka leedar studio sirka leedar haddii uu jiro studio sirka leedar OBF qofkii ugu diiwaan gashan mikrofoonka meesha ha soo istaago studio sirka leedar haddaa ku diiwaan gashan tahay soo istaag studio sirka leedar haddii aad ku diiwaan gashan tahay OBF aad ugu diiwaan gashan tahay halkan soo istaag oo aad fadhiso goobta macnaheedu waxay tahay haddii kale inaad fahmin waxa aan sheegayo sirka leedar haddii aad tahay soo istaag halkan soo istaag waqti baan ugu socda program waa ogaa programku uu dheer yahay soo istaag halkan studio sirka leedar iska dhaaf wali maqlayn karfan qofan maqlayn ma jira studio sirka leedar qofkii ah soo istaago bis af Soomaaliga aan fahmin af Soomaaliga waa xaq wala seerata studio sirka leedar qofkii ah waa inuu halkan soo istaago studio sirka leedar waxaan rabaa